ninka maayarkaabaa leydhka ku dhex jiraa laakiin waxa ayaan darra ah cabdishakuur isagoo cabdalla sandheere maayara ayuu isagoo tacaddi shakhsiyana tirsanaya isagu mid isaga u gaara tirsanaya ayuu qori la galay leydhka magaalada uu ka baktiyey maantana bulshada reer berbere boqolaalka kuna buu dulmiyayaa oo uu kursigaa uu ku fadhiya ummadda ka dhexeeyu ku dulmiyayaa golaha deegaanka dhexdiisa waxaan ku weydiiyey soomaalidu waxay ku maahmaahdaa godina imaad goysayna barhkay baa kugu jiraa bulshadii reer berbera ee goobta ahaydana dooratay maxay ugu dhacayaan arrimahani waa su'aal u baahan in la isweydiiyo reer Soomaaliland badankoodu aanay ka warhayn waxay ugu dhacayaan war magaaladii maayar baa xukuma bal reer berbera hay isweydiiyaan mise shareholder shirkadda leydhka ee berbera ka mid ah baa maamulaya berbera laba mushkiladood oo waaweyn baa yaalla baan hore saxaafadda uga idhiyo waa leydhka iyo ninka maayarka ka ah mushkilad kale oo weyn oo berbera taala ma jirto reer berbera cabdishakuur cidiin oo fashiliyay maalgelintii leydhka berbera iyo muranka dhulka dadweynaha oo faylo sharci darro ah loo samaystay deymaha ay la circiiraysay magaalada dhaqaalaha badan ee soo gala ee kooban ee berbera warbixinteenan ayaynu ku dul istaagi doonaa mulkiilaha qarsoon ee leydhka berbera cidiin ayaa awood dowladeed ugu haya kootada leydhka magaalada berbera la dagaalanka mashruuca maalgelinta leydhka magaalada berbera oo 3 jeer lagu bixiyay lacag malaayiin dollar oo macaawimo ah iyadoo dakhliga ka soo xarooday magaalada berbera ay kaga maarmi kareysay in maalgelin loo doono leydhka magaalada haddana waxa maamulka dowladda hoose gacan bidixiyay dakhligii caawinta magaalada ee solar systemka 30 milyan oo dollar lacag ku dhow ayaa dowladda Imaaraadka iyo Ingiriisku ay ugu deeqeen magaalada berbera leydhkeeda in la caawiyo lacagtaas waxay inta badan in ka badan 20 jeer baahi tiri lahayd shacabka magaalada berbera oo leydh jaban ku heli lahaa mashruuca leydhka berbera lacagta 30 milyan lagu maalgeliyay waa uu fashilmay mana jirto wax u soo kordhay shacabka magaalada berbera sababta fashilka mashruucaas ka dambeysa ayaa lagu sheegay inuu yahay maayarka magaalada cabdishakuur maxamed xasan cidiin oo ka mid ah mulkiilayaasha shirkadda leydhka sidoo kale 14 sano ee garwadeenka golaha deegaanka degmada berbera ahaa maayar cidiin waxa uu dhulkii dowladda gacanta ku haysay uu isticmaalay goobaha muhiimka ah isagoo isku qoray sidoo kalena kula shuraakoobay ganacsato kooban oo ay isku shaqaystaan isla markaana uu ku qarsado hantida dhulka iyo guryaha ah taas oo xarkaha goosatay 10 sano u dambeeyay dhacdooyinka kale la yaab kale waxa ka mid ah jogooyinka iyo buqcadaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada gudaheeda berbera uu dadkii lahaa ku damaaciyay isagoo oo qaarna ka qaaday sidoo kale kuwa kale u sameeyay faylal been abuur ah kuwaas oo muran ku gelinaya dhulkooda jogooyinka qaar ayaa ilaa 5 jeer faylal kala duwan uu dad u sameeyay taas oo khilaaf xoogan ka abuurtay bulshada berbera oo inta badan madaxa isla galay inta kalena 5 sano u dambeeyay dakhliga xadka baxa ah ee ku soo xarooda dowladda hoose haba yaraatay ma jirto wax mashruuc ah ama wax qabad ah oo loogu bedelay bulshadii laga qaaday isbedelkeeda xoga iyo ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay dakhliga kastamka magaalada berbera u qabto dowladda hoose oo aad u badan lagula shirgroobay ganacsato sidoo kalena lagu dhoofiyay ciidda iyo buuraha iyadoo khayraadka kale deegaanka uu ka faa'iideeyo ama uu dalka dibadiisa u dhoofiyo maayarka magaalada oo u samaystay shirkada gaara odayaal barnaamijyada dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa in ka badan 20 mashruuc oo fashilmay muddadii uu maayarka magaalada ahaa kuwaas oo magaalada ka dhigi lahaa New York yar mashruuca 50 milyan markii hore dee ka warhaysaan Hargeysa inta badan loogu talagalay laakiin waxa nasiib u heshay oo ugu badsatay maka saaxil ama magaalada berbera oo 20 milyan oo dollar oo heshay inay nasiib u hesho awoodda tamarta cadceedda laga dhalinayo ee Imaaraadku inagu caawiyeen iyo Ingiriisku maantana waxaynu u helay nasiib inuu 20 milyan oo dollar oo u dhigma sidii halkan laga sheegay 36 generators megawatt iyo 12 cadceedda lagu kordhiyo awoodii leydhka ee magaalada berbera waxaan ku holaynay in magaalada berbera ay leydh jaban u baahan tahay si dalku ugu wada baahan yahay laakiin iyadoo duruufteeda gaarka iyadoo la eegayay magaalo xeebeed tahay waxay ku khasban tahay dadku si ay u joogaan ugu noolaadaan
inay helaan laydh ay awoodi karaan inay iska bixiyaan. ninka maayarkaabaa leydhka ku dhex jira laakiin waxa ayaan darra ah cabdishakuur isagoo cabdalla sandheere maayara ayuu isagoo tacaddi shakhsiyana tirsanaya isagu mid isaga u gaara tirsanaya ayuu qori la galay leydhka magaalada uu ka baktiyey maantana bulshada reer berbere boqolaalka kuna buu dulmiyayaa oo uu kursigaa uu ku fadhiya ummadda ka dhexeeyu ku dulmiyayaa golaha deegaanka dhexdiisa waxaan ku weydiiyey Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa godina imaad goysayna barkay baa kugu jira bulshadii reer berbera ee goobta ahaydana dooratay waxay ugu dhacayaan arrimahani waa su'aal u baahan la isweydiiyo reer Soomaaliland badankoodu aanay ka warhayn waxay ugu dhacayaan war magaaladii maayar baa xukuma bal reer berbera hay isweydiiyaan mise shareholder shirkadda leydhka ee berbera ka mid ah baa maamulaya berbera laba mushkiladood oo waaweyn baa yaalla baan hore saxaafadda uga idhiyo waa leydhka iyo ninka maayarka ka ah mushkilad kale oo weyn oo berbera taala ma jirto reer berbera cabdishakuur cidiin oo fashiliyay maalgelintii leedhka berbera iyo muranka dhulka dadweynaha oo faylo sharci darro ah loo samaystay deymaha ay la circiiraysay magaalada dhaqaalaha badan soo gala ee kooban ee berbera warbixinteenan ayaynu ku dul istaagi doonaa mulkiilaha qarsoon ee leedhka berbera cidiin ayaa awood dawladeed ugu haya kootada leedhka magaalada berbera la dagaalanka mashruuca maalgelinta leedhka magaalada berbera oo 3 jeer lagu bixiyay lacag malaayiin dollar oo macaawimo ah iyadoo dakhliga ka soo xarooday magaalada berbera ay kaga maarmi kareysay in maalgelin loo doono leedhka magaalada haddana waxa maamulka dawladda hoose gacan bidixiyay dakhligii caawinta magaalada ee solar systemka 30 milyan oo dollar lacag ku dhow ayaa dawladda Imaaraadka iyo Ingiriisku ay ugu deeqeen magaalada berbera leedhkeeda in laga caawiyo lacagtaas waxay in ka badan 20 jeer baahi tiri lahayd shacabka magaalada berbera oo leedh jaban ku heli lahaa mashruuca leedhka berbera lacagta 30 milyan lagu maalgeliyay waa uu fashilmay mana jirto wax u soo kordhay shacabka magaalada berbera sababta fashilka mashruucaas ka dambaysa ayaa lagu sheegay inuu yahay maayarka magaalada cabdishakuur maxamed xasan cidiin oo ka mid ah mulkiilayaasha shirkadda leedhka sidoo kale 14 sano oo garwadeenka golaha deegaanka degmada berbera ahaa maayar cidiin waxa uu dhulkii dawladda gacanta ku haysay uu isticmaalay goobaha muhiimka ah isagoo isku qoray sidoo kalena kula shuraakoobay ganacsato kooban oo ay isku shaqaystaan isla markaana uu ku qarsado hantida dhulka iyo guryaha ah taas oo xarkaha goosatay 10 sano u dambeeyay dhacdooyinka kale la yaab kale waxa ka mid ah jogooyinka iyo buqcadaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada gudaheeda berbera uu dadkii lahaa ku damaaciyay isagoo oo qaarna ka qaaday sidoo kale kuwa kale u sameeyay faylal been abuur ah kuwaas oo muran ku gelinaya dhulkooda jogooyinka qaar ayaa ilaa 5 jeer faylal kala duwan uu dad u sameeyay taas oo khilaaf xoogan ka abuurtay bulshada berbera oo inta badan madaxa isla galay inta kalena 5 sano u dambeeyay dakhliga xadka baxa ah ee ku soo xarooda dawladda hoose haba yaraatee ma jirto wax mashruuc ah ama wax qabad ah oo loogu bedelay bulshadii laga qaaday isbedelkeeda xoga iyo ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay dakhliga kastamka magaalada berbera u qabto dawladda hoose oo aad u badan lagula shirgroobay ganacsato sidoo kalena lagu dhoofiyay ciidda iyo buuraha iyadoo khayraadka kale deegaanka uu ka faa'iideeyo ama uu dalka dibadiisa u dhoofiyo maayarka magaalada oo u samaystay shirkada gaara odayaal barnaamijyada dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa in ka badan 20 mashruuc oo fashilmay muddadii uu maayarka magaalada ahaa kuwaas oo magaalada ka dhigi lahaa New York yar mashruuca 50 milyan markii hore dee ka warhaysaan Hargeysa inta badan loogu talagalay laakiin waxa nasiib u heshay oo ugu badsatay marka saaxil ama magaalada berbera oo 20 milyan oo dollar oo heshay inay nasiib u hesho awoodda tamarta cadceedda laga dhalinayo ee Imaaraadku inagu caawiyeen iyo Ingiriisku maantana waxaynu u helay nasiib inuu 20 milyan oo dollar oo u dhigma sidii halka laga sheegay 36 generators megawatt iyo 12 cadceedda lagu kordhiyo awoodii leydhka ee magaalada berbera waxaan ku oolaynay in magaalada berbera ay leydh jaban u baahan tahay si dalku ugu wada baahan yahay laakiin iyadoo duruufteeda gaarka iyadoo la eegayay magaalo xeebeed tahay
waxay ku khasban tahay dadku si ay u joogaan ugu noolaadaan inay helaan laydh ay awoodi karaan inay iska bixiyaan